رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Guuleed Xuseen Qaasim iyadoo xilkaas loo magacaabay mudane Maxamed Jaamac Mursal oo noqday wasiirka cusub ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta wareegtada oo ka soo baxday xafiiska raiisul wasaaraha dalka ayaa lagu yiri markii uu arkay qodobka 97 farqadiisa koobaad labaad iyo saddexaad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii uu arkay xeerka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo lambarkeedu yahay 72 kuna taariikhaysan 17 bisha 12 2014 kuna saabsanayd magacaabidayda raiisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya markii uu arkay baahida loo qabo tayeynta joogtada ah ee golaha wasiirada ayuu go'aansaday in uu sameeyo magacaabis iyo xilka qaadis waa markii saddexaad ee raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake uu wasiir xilka ka qaado jagadaana uu magacaabo wasiir cusub Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho.